dadkii dhulka lahaana ay noqdaan mataqaanaa dad lagu dul hardamo oon waxba laga weydiinin oo marba sidii dameere dhaan raacday iska ah taasi waa khalad buu yidhi annagoo af soomaali maamaha baan leenahay buu yidhi dameere dhaan raacday oo af xabashi ugu turjumay marka iminka waxaad arkaysaa mataqaanaa saxaafadihii af xabashiga ahayoo dhan baa ninkan kala boobaya oo weydiinaya arrinkan taariikhda. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله دعوة ديال ميل كتدورين نقرأ ساعتان وأروني مسنها بش أكتوبر وكوبي سودان سنة لبضة كوني يلبي لا تنكا خذوا بدأت برامج كنا كم أقل دونتان نواحة كمدة رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo sheegay in loo argudayo dadkii lagu xasuuqay isgoyska Soobe ee faraha badnaa kadib markii uu booqday dhaawacyadii iyo waliba meydadkii ku jiray isbitaalada magaalada Muqdisho kuwaasi oo buux dhaafiyay guud ahaanba isbitaaladaasi magaalada Muqdishona ka dhigay meel mashquul ah oo ilaa iyo hadda dadku ay meel ay maraan leeyihiin isla markaana urkutaalo weyn ku reebtay bulshada Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka qaybta gobolka Banaadir isaguna waxa uu soo saaray amarro culus kadib qaraxyadaasi iyo guud ahaanba ciddii ka dambeysay qaraxyadaasi waaweyn ee lagu dhamaaday ka dhacay magaalada Muqdisho oo la ogaaday iyo cidda haatan lagu eedeeyay ama la filayo inay qaraxyadaasi fududeysay ayaan idinla wadaagi doonaa. magaalada Jigjigana waxaa maanta la filayaa in maxkamad la soo taago ninkii dilay Juwariye Subciis oo lagu dilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga iyo waliba warar ka soo baxaya ayaan eegi doonaa maxkamad geyntiisa iyo xaaladda magaalada Jigjiga iyo waliba warar la yaab leh oo halkaas naga soo gaadhaya iyo waqooyiga waddanka Itoobiya dagaalada ka soconaya ee dowladda Itoobiya iyo kooxda TPLF u dhaxeeya iyo Axmaarada oo war ka soo saartay dagaaladaasi iyo guud ahaanba weerar ay ku hobteen oo ka dhacay gudaha deegaanka Axmaarada. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaadhay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wali magaaladaasi ay mashquul ku tahay dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii lagu halaagsamay ee ka dhacay isgoyska Soobe. shirka golaha wasiirada ee Soomaaliya oo xalay qabsoomay ayaa laga soo saaray go'aamo khuseeya xaaladda dalka kuwaasi oo hadda socda qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho kadib kuwaas oo ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya boqolaal sida la sheegay isla markaana ku dhow xilligan 200 oo qof. shirkan ayaa waxaa ka soo baxay go'aamo ay ka mid yihiin in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay lacag $1 milyan oo dollar ah ugu deeqday sanduuqa gurmadka iyo guud ahaanba waxyaabaha wax ka qabashada dadkaasi dhibaatoobay ee qaraxyadaasi ku waxyeeloobay. waxaana sidoo kale ka mid ah in golaha wasiirada ay isku afgarteen in dib loo aasaaso bangiga kaydka dhiigga ee heer qaran isla markaana dhibaatooyinka dhiig bixinta si looga reysto. waxaa magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ka taagneyd dhibaatooyinka dhanka dhiigga oo dad fara badan ay khatar u galeen dhiiggaasi iyo waliba dhiig bixintaasi. isbitaalada qaarna laga soo tabinayay dhacdooyin argagax leh oo ay dadka Soomaaliyeed kula kaceen. shirkaas kadib ra'yisul wasaare Xamse ayaa booqday qaar ka mid ah isbitaalada lagula tacaalayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadaasi oo magaalada Muqdisho ku kala yaal kuwaas oo buux dhaafiyay guud ahaanba isbitaalada magaalada Muqdisho. waxaana khudbad u jeediyay kadib uu ku ballan qaaday in kooxdaas argagixisada ee shabaabka ay ka xoreyn doonaan dalka isla markaana ay u aari doonaan dadka Soomaaliyeed ee ku waxyeeloobay qaraxyadii sabtidii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. xalka kaliya waa inaan la dagaalanaa guud ahaan aan iska dhicinaa kooxdaas argagixisada ee shabaabka. waxaan ballan qaadayaa in loo argudi doono dadka Soomaaliyeed. waxaa loo argudayaa guud ahaanba dadkaasi dhibaatadu ay kasoo gaadhay waxaana loogu argudi doonaa in laga xoreeyo deegaanada iyo waliba magaalooyinka ay haystaan kooxdaasi arxanlaawayaasha nafla caariga noqday haatan ee kaliya ka adag inay daadiyaan dhiigga shacabka masaakiinta ee aan waxba ka galabsanin balse gacanta ciidamada Soomaaliyeed ayaa guud ahaanba lagu burburin doonaa ayuu yidhi. haatan ay u adkeysan laayihiin oo ay marba meesha ay u nugul yihiin shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan inay dhiigooda ku daadiyaan. dhanka kale ra'yisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday dhakhaatiirta in ay si mutadawacnimo leh ay ugu soo dhaweeyaan isbitaalada dadka dhibaatoobay ee qaraxyadaasi ay halakeeyeen iyadoo isbitaalada qaar la sheegay in guud ahaanba xitaa dadka midka ay lacag ka qaadanayaan. arrintaasi oo noqotay arrin naxdin leh oo magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay tan iyo qaraxii markuu dhacay laga soo sheegay. dhakhaatiirta waxaan ka codsanayaa ayuu yidhi ra'yisul wasaaruhu in si mutadawacnimo leh ay ugu adeegaan. waxaan rajaynaynaa in isbitaalada gaarka loo leeyahay ay qaabilaan dadka walaalahooda dadka dibadda ku maqan. xitaa waxa uu yidhi ra'yisul wasaaruhu inay noqdaan daawadayaal lama rabo. waxaa loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan guud ahaanba
gurmadka loo fidinayo dadkaasi iyo weliba dagaalada lagula geliyo kooxda argagixisada ah ee shabaabka lagana xoreynayo deegaanada iyo weliba goobaha kala duwan ee ay dalka ka haystaan kooxdaasi dhibaatada faraha badan ku haysta shacabka Soomaaliyeed. si kastoo ay haataba waxay dad fara badan isweydiinayaan in kooxdaasi argagixisada ah lagula dagaalamo furimaha hore ee dagaalka islamarkaana lagaga adkaado oo ciidamada Soomaaliyeed ay jab xoogan soo gaarsiiyaan iyo in ilaa iyo hadda la kari la'yahay islamarkaana guud ahaanba waxba laga qaban la'yahay qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii ugu waaweynaa uguna darnaa shacabka Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada caasimadda iyo weliba magaalooyinka kale. arrintaasi ayaa weli isqaban la oo ay dad fara badan su'aalo iska weydiinayaan, waxaana loo sababeeyay in ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo weliba nabad sugidda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ay guud ahaanba gabeen howlahoodii oo aan kooxdaasi ay weli ku sugan tahay magaalada Muqdisho iyagoo ah shabakado iyo weliba gruubyo isku xidhan oo magaalada Muqdisho ka howlgalaya ilaa iyo hadda, waxaana ay u sameysay yihiin kaliya in ay qaraxyo iyo weliba dhibaatooyin ay ka sameeyaan magaaladaasi oo ay shacabkaasi masaakiinta ah ee ku dhaqan magaalada ay ku gumaadaan. waxaana hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranku ay weli ogaan leedahay shabakadahaasi iyo weliba gruubyadaasi isku xidhan ee magaalada Muqdisho ku diyaarinaya qaraxyada iyo weliba dhibaatooyinkaasi ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed. waxaa la sheegay ama warbixino la soo saaray oo Mareykanka iyo weliba hay'adaha kale ee caalamiga ay soo saareen lagu sheegay in qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Muqdisho lagu diyaariyay Muqdisho gudaheeda islamarkaana halkaasi lagaga soo abaabulay oo ay kooxahaasi ka fuliyeen. waxaana loo baahan yahay sida wararku ay sheegeen hay'adda nabad sugidda oo kaliya ay wax ka qaban karayso arrimahaasi xuuraan iyo hadday noqoto xogba, loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay si dhow la shaqeeyaan ciidamadooda nabad sugidda iyo weliba booliska si wax looga qabto dhibaatooyinka haatan haysta. qaar fara badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale la eedeeyay oo lagu eedeeyay in ay arrimahaasi ka gaabsanayaan, qaar badanna ayba gacan siinayaan. si kastoo ay haataba dhibaatadaasi ayaa ka taagan magaalada Muqdisho maalin walbana waxaa loo ooyay hooyo, aabbo iyo weliba walaal Soomaaliyeed oo ay kooxahaasi dhibaatada badan ay ku xasuuqayaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. haatan anigna wararka naga soo gaaraya wadanka Itoobiya. magaalada Jigjiga waxaa maanta la filayaa in maxkamad la soo taago ninkii dilay Juwariye Subciis oo axmar ah islamarkaana halkaasi la filayo in lagu maxkamadeeyo oo maanta maxkamadiisii ugu dambeysay la filayo in maxkamadda sare ee deegaanka Soomaalida ay soo saarto oo ninkaasi dil toogasho lagu fuliyo, walow wararka qaar ay sheegayaan in maxkamaddu ay maanta sii socon doonto islamarkaana halkaasi lagu dhageysan doono dacwadiisa lagana yaabo in uu racfaan ka qaato xukun lagu rido. si kastoo ay haataba waa loo doodaya qareemo kala duwan ayaana u doodaya ninkaasi oo doonaya in ay difaacaan oo ay ka difaacaan dilkaasi toogasho haddii wax lagu xukumayana lagu xukumo xabsi daa'in oo loo dhaadhiciyo xabsiyada dalkaasi Itoobiya ee dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya. si kastoo ay haataba magaalada Jigjiga ay arrimahaasi ka taagan yihiin, waxaana dad fara badan oo cadhaysan la filayaa maanta in ay xaadiraan maxkamadaasi ninka lagu qaadayo, walow ciidamada ammaanku ay u diidayaan in dad badan ay kasoo xaadiraan maxkamadaasi oo ay dacwadda ninkaasi dhageystaan, iyadoo shacabka magaalada Jigjiga ay ninkaasi ciil iyo cadho badan u qabaan. ayaa arrimahaasi jira awgood ciidamada ammaanku ay isugu gadaameen ninkaasi oo la filayo in xukuumadda deegaanku ay tallaabo ka qaadi doonto oo ay iyadu ku filan tahay, balse ay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba wadanka Soomaaliyeedba ay sugayaan in ninkaasi lagu qaado maxkamadaasi islamarkaana lagu xukumo wixii u qalmay dilkii bareerka ee uu geystay xildhibaanad Juwariye Subciis oo Allah u naxariistay uu ku dilay garoonka diyaaradaha ee Gradwell Wall ee magaalada Jigjiga. dhinaca kale waxaa dagaaladii ay ka soconayaan waqooyiga wadankaasi Itoobiya islamarkaana dad badan ayaa ku dhintay, waxaana weeraro lagu hoobtay ay ka dhaceen gudaha deegaanka Axmarada sida wararku ay tilmaamayaan, kadib markii kooxo hubeysan oo ka tirsan ciidamada TPLF ay weerar ku qaadeen magaalo dhan oo ku taalay waqooyiga deegaankaasi Axmarada ayna ku dileen dad badan oo aagaasi ku dhaqnaa. weeraradaasi aad ay ugu faraxsan yihiin xilligan dad fara badan oo Soomaaliyeedna waa ay soo dhaweeyeen, balse ma ahan taageero loo fidinayo kooxda TPLF oo lafteedu ka geysatay dhibaatooyin xoog badan gudaha deegaanka
Soomaalida balse waxa ay aad ugu taageerayaan in Axmaarada iyo waliba Tigreegu ay laftirkooda isku jabaan oo ay ahaayeen laba cadow oo ay lahaayeen dadka Soomaaliyeed muddo dheerna soo dhibaateynayay. Axmaaradu way uga horeysay Soomaalida ilaa iyo haddana nacay badan ayay u qabtaa Soomaalida iyo waliba nolosha dadka Soomaaliyeedba, waxaana ka mid ah ninkaasi Axmaarka ah ee haatan ku xidhan Jigjiga isla markaana ku dilay dad hal door ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga oo Juwaariye Subciis ay ka mid tahay. Akhayrta sharafta leh wada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo.